munaasibadan oo isugu jirtay afur sharaf iyo sidoo kale casho sharaf wada socda oo xalay ka qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ay laba beelood oo ka mid ah beelaha dega gobolada Muradjeex iyo Gabiley ay ku midoobeen codadka musharixiintooda iyadoona ay labadani beelood ee walaalaha ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah uga codeyn doonaan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa. Aqoon-yahan Cabdiwahaab Sheekh Maxamed Daahir oo loo garan og yahay soo haleela halka ay doorashada golaha wakiilada ee gobolka Muradjeexna isku raaceen inay codka siin doonaan Cabdiqaadir Muuse Ciga Tayd. taas beddelkeedana ay mid ka mid ah labada beelood ay golaha deegaanka ee degmada Gabiley ee codka si wada jir ah u siin doonaan aqoon-yahan Cabdikariin Cali Askar. waxaana munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay aqoon-yahano, cuqaal, waxgaradka labada beelood, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo musharixiinta ay ku midoobeen labadani beelood inay codka siin doonaan si wada jir ah. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay cuqaasha, salaadiinta, waxgaradka iyo aqoon-yahanka labadani beelood ee codka ku midoobay, waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen inay isku raaceen in golaha deegaanka ee degmada Gabiley ay labada beelood codka si wada jir ah u siinayaan aqoon-yahan Cabdikariin Cali Askar, halka ay golaha deegaanka ee degmada Hargeysana ay isku raaceen inay u codeyn doonaan aqoon-yahan Cabdiwahaab Sheekh Maxamed Daahir oo loo garan og yahay soo haleela. golaha wakiilada ee gobolka Muradjeexna ay ku sheegeen inay isku raaceen Cabdiqaadir Muuse Ciga Tayd inay si wada keenay xafladan qaaliga ah ee lagu bahoobayo ee la isweydaarsanayo xildhibaanada golaha deegaanka iyo kuwa baarlamanka beeshu waxay ku heshiisay inay noqoto bahwadaag oo ay ku heshiiyaan baarlamanka iyo deegaanka ay soo wada saaraan. marka beeshii reer maxamuud waxay naga codsatay in xaflad la qabto. xafladii waanu ka aqbalay. xafladii waa taasoo waa la soo abaabulay. waxaanu idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aad u soo qaabisheen u soo ajiibteen arrinkii aynu ku heshiinayno hore ugu hadalay. 3 goor hore waynu kulannay. marka waa ilaahay mahadii waa habeen khayr leh. waxa weeyaan wixii aynu ku heshiinay halkaasaynu ka sii wadaynaa. waxa weeyaan baarlamankii wuu fadhiyaa. waxaanu idinka fadhinaa in baarlamanka iyo deegaanka labadaba na siisaan sidii muxuu ahaay loo soo saari lahaa damaca aynu yeelanay ee ama deegaan ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaay baarlamaan ha noqoto sidii Sacad Muuse muxuu ahaa uga muuqan lahaa muxuu ahaa golayaasha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ama ka muxuu ahaa golaha baarlamaanka runtii ayuu baan runtii ku hawlanayn runtii reero aad u rafanaya runtii way iska jiraan oo wali hadda muxuu ahaa dhinaca haysto isjiidasadaasina runtii damaca faraha badan ee gudaheena ayaa runtii keenaya ballanqaad aanu Cabdilla Sacaad u ballan qaadnay oo hore oo isagu biyo kama dhibcaana uu jiraa oo runtii ahaa golaha deegaanka oo Gabiley iyo Hargeysa inaynu isweydaarsano golaha baarlamaanka laftigiisa. maxamuud wixii lagu heshiiyo ama wixii ay qaataan waa wax geedka go'aana biyo kama dhibcaana marka waa la isku haleyn karaa. maxamuud marka la yiraahdo waa dad la isku haleyn karo waa dad aan walaalanahay iska xigna inta kale. xafladan Cabdilla Sacaad iyo reer maxamuud ay caawa halkan ku kulansan yihiin waxay ku timid fariin reer maxamuud ka timid oo Cabdalla u timid oo ahayd codkii baarlamaanka iyo kii dawladda hoose waa lideysiinayna. saasa xafladda Cabdilla Sacaad ku qabtay caawa oo halkan wada fadhinaa. waxaan leeyahay badil maayo biina maayo insha Allah ta'ala. waxa weeye wixii aynu hore u gunudnay waynu 2 guntaynaa waynu 3 guntaynaa waynu 4 guntaynaa waa dilkeeda dalkaas ugu busayay. waa inta iyo ducoon baynu meesha imika u fadhinaay. hadal muhiimadii waa la yiri waana idin salaamaya arrinkuna sidaa uu ahaa bay ahayd. mid waa iga warbixin oo waxa weeye hawshii hore ee aynu wada bilownay ee uu daawtobanka jeer guntay inaynu iyadana warbixinteediisa siino oo sidii deegaanadii aanu u soo wada marnay ee aanu goobihii sanaaduuqda iyo dadkii codeynayay waxaa soo dhan aanu u soo wada wacyi gelinay iyadana guul baanu ka rajaynaynaa. waynu sugaynoo dhowr ballamood baa inoo dhacay horeynu isku aragnay ballan waliba dee waqtigiisu dhacaa wada jir in wax lagu doontaana way fiican tahay. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنه حارق ونكسون وذا قبصنه أو حدعنا نملهن أو حبوبنا أو حدلنا نملهن أو حوذا قبصنه وحب ملا وذا جينا به
hore waynu wada hadalnay waanu ku heshiinay dad maanta isbaranaya meehna daasaba dhalay oo isku abti iyo adeer iyo isku wada abaynahay inta meesha fadhida intaan abti u ahay waa kala bada ya sabab garan marka waxa weeye horta inaynu is aamino ayaa meesha taala ilaahayna aynu taala saarano ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xidhay isla markaana hadallo kooban ka jeediyey suldaanka mid ka mid ah labadan beelood ee codka ku heshiiyey waxaanu yidhi markaa waalid baanu idinnahay ubadkayagii baa tihiin boqolkiiba boqol waa mahadsan tihiin arrinkaa aad ka wada hadasheen ee reerkayga ka wada hadasheenna waa arrin waxa weeyaan inoo dhexeeyey waana tolnimo waxa weeye siyaasaddu way gurguurtaa laakiin tolnimadii dhalashadu ma gurguurto siyaasaddu dad joogtaa bay leedahay waxa weeyaan arrinkaa deegaanka iyo baarlamaanka waxa weeye annaga codka deegaanka Gabiley annaga Gabiley reerka cid ugama sharaxna golaha deegaanka Cabdilla Sacad markaa codka golaha deegaanka ee gobolka Gabiley biduun shuruud baa la idinku wareejinayaa sida odayaashu sheegeen waa la idin siinayaa waxa weeyaan idinkuna ka codka baarlamaanka iyo codka golaha deegaanka insha Allah Axmed Daahir Nuux Nasabka Sahan TV Hargeysa.